بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan caawa halkan kaga hadlaynaa fariin aan ummadda Soomaaliyeed halkan uga dirayo meel kasta ay joogto. Fariintaas oo qusaysa samafale halgamaa iyo wariye Cabdimaalig Muuse Coldoon oo muddo xidhnaa. Cabdimaalig Muuse Coldoon waxa uu ahaa shakhsiyaadka muhiimka ah ummadda Soomaaliyeed waqtigan aynu joogno. waxa uu ahaa halgamaa, waxa uu ahaa wariye, waxa uu ahaa samafale. Cabdimaalig waxyaabaha aadka loogu xasuusan doono waxaa ka mid ah dhacdooyinkii uu noo soo gudbin jiray isugu jiray ama cid la dulmiyey ama cid uu samafalay ama cid dhibaataysan oo gargaar in loo soo gargaaro uu ku yaboohi jiray. Cabdimaalig Muuse Coldoon waxa uu ahaa shakhsi aad iyo aad u naxariis badan oo ka turjumaya dadnimada rasmiga ah. waxa uu astaanta dadnimada ummadda Soomaaliyeed ee waqtigan. Cabdimaalig Muuse Coldoon waxa uu ahaa qof aad iyo aad runtii dulmiga u neceb, dulmigu meel kasta uu ka jirana ka soo horjeeda oo aan wax dulqaada u lahayn. taa waxa aynu ku garawsan karnaa sidii uu noogu soo gudbiyey dulmigii baahsanaa ee ummadda Soomaali galbeed ku hayay taliskii manaxa ahaa ee Cabdiilay, iyadoo markaas magaalooyinka Soomaaliyeed badankooda ama guud ahaanba aan cid ka hadashaa jirin inta badan, ama cid dareensaneed dhibaatada dadka lagu hayo aanay jirin ama soo gudbin jirtayba. ayuu isagu ahaa shakhsi aad iyo aad inoogu soo gudbiya oo aad iyo aad runtii mar walba ula dareen ahaa dadka dhibaatada ku hayay taliskaasi. Cabdimaalig Muuse Coldoon waxaan nin badan aragnay isagoo dad la dulmiyey doodaya, waxaan nin badan aragnay isagoo dad tabaalaysan wax u qabanaya, waxaan nin badan aragnay isagoo xataa xayawaan u damqaday oo dameerkii Burco iyo sidii uu daryeelkiisa caafimaad uga qayb galay. waxa uu runtii astaanta dadnimada ummadda Soomaaliyeed. Cabdimaalig Muuse Coldoon sanadkan bishiisii afraad bartankeedii ayaa laga soo aftuubay magaalada Burco. muddo wuxuu ku xidhnaa xabsiga Hargeysa, halkaasoo muddo ugu xidhnaa sharci darro, waayo wax maxkamada lama keenin. muddo kadib baa maxkamad la keenay. Cabdimaalig Muuse Coldoon maxkamaddii la keenay, sidii loo maamulay, sidii xadhiggiisu sharci darrada u ahaa iyo fadeexaddii maxkamadda ka dhacday intaba waynu ka dharagsannahay oo waxaynu ogeynay iyadoo garyaqaanadii u doodayey ay ummadda horteeda ka caddeeyeen fadeexaddii ka dhacday meeshaas, iyo in wax sharci la yidhaahdo oo la tixgeliya aanu jirin. waxaa kaloo aynu ognahay Cabdimaalig Muuse Coldoon in aanu helin wax alaalo wixii ay ahayd qof lasoo xidhay inuu helo. uu noqday qof burcad u qafaalan sidii loola dhaqmay marka loo eego, maadaama loo diiday ehelkiisii inay booqdaan, maadaama xabsiga dhexdiisa lagu ciqaabay sida ehelkiisu sheegeen, maadaama in la booqdo oo dhan la diiday. Cabdimaalig wuxuu xidhan yahay laba waxyaabood. labadaa waxyaabood oo ah: kow, wuxuu ahaa qof dulmiga neceb, qof xorriyadda iyo ummadda u halgama. waxa uu ahaa qof aan waxyaabaha u muuqda ee aan dadka badankiisa u muuqan soo gudbiya oo inala wadaaga, dadkana baraarujiya. qodobka uu xidhay horta waa qodobkaas oo loo haysto maxaad waxaan u ifinaysaa mushkiladaha waddanka ka jira aad u ifinaysaa buu xidhay. qodobka labaadna waxa weeye waa nacayb shakhsi oo loo qaaday isaga oo kooxda meesha joogta ay u qaaday, maadaama waddanihii aan wanaagsaneyn ee meesha ku haysay uu tooshka ku ifiyey ama uu dulmiga waddanka ka jira ka hadlay. waxyaabaha u xidhayana waxaa ka mid ah xorriyaddiisa fikir iyo Facebook baad wax ku qortay ama xorriyadda fikirkaaga aad access garayso oo aad isticmaashay. Cabdimaalig waxyaabahaas loogu sameynaya waxa weeye in dhammaanteen layna aamusiiyo oo aynan ka hadlin waxyaabaha aynu arkayno, aynu iska indhamarno, iska dhagamarno ayaa loogu talagalay. oo haddii kale sidaa laynoo ciqaabayo waxa weeye waa tactics isticmaalaan nidaamyada kale taliska ah ee caburiya xorriyadda iyo fikirka dadka, isla markaana jecelnay damacooda xun ku xukumaan dadyowga. Cabdimaalig Muuse Coldoon wuxuu inooga baahan yahay inaan dhammaanteen aynan ilaawin inuu ku jiro xabsi aad iyo aad u fool xun, si xunna loola dhaqmo. dhammaan dadkeennii uu dareenkooda ka turjumi jirayna ay maanta la dareen noqdaan, isagoo oo ay tahay inaynu u halganno soo deyntiisa iyo xorriyaddiisa, iyadoo aanu keligii xidhnayn Cabdimaalig boqolaal qof oo kale oo sharci darro ku xidhan ay jiraan
way ka mid yihiin abwaan baashe iyo raggii la xidhnaa ee macallimiinta ahaa. waxaa kaloo aynu ognahay in dadyogii kale faraha badnaa ee xidhnaa ee aadan sunne oo lasoo daayay iminka isaguna oo ka mid ahaa, iyo dhalinyaradii badneed ee la xidhnayd oo qaarkood weli xidhan yihiin. dadkaas oo dhan waxay nooga baahan yihiin inaynu mar walba aynu ka hadalno oo aynu u dadaalno sidii loo soo dayn lahaa. waxaa kaloo aan aad iyo aad idinku boorinayaa in aydan joojin soo gudbinta waxyaabaha uu taliskani ummadda ku hayo iyo dad yowga faraha badan uu xidhayo, inaad xuquuqdooda iyo xorriyaddooda u doodaan. qof kasta oo qori karaya luuqadaha fahmada aadmiga ku fiican na inuu u gudbiyo cid kastoo danaysa xuquuqda aadmiga, tacadiga dadka loo geystay iyo dhibaatada ay ku sugan yihiin intaba. fariintanna waxaan jecelahay inaad dhammaantiin isgaadhsiisaan si aynu ula dareen noqonno dadyowgeenna ku xidhan xabsiyada ee taliska cadowga ah ee xorriyadda dadka kasoo horjeeda iyo sharciga uu xidhay. aad iyo aad baan idiin salaamaya dhammaantiin, waana mahadsantiin.